السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور هذا جوار أوفشال هذا يقول عصبتها بلي سبسكرايب لايك أند كومنت هذا هور إلى جوكت كومنت يدو هذه أمانتي دير كلنت وحقاقة هور أوصي ولا ليه جمرول ما سنتهين سيدا ودنتهين هذا نقطة قبلها قروح بدن يوتيوب رضا هذا نقطة فارن اسكي وحرني فاميلي وحيدي الله وما سنتهين boqolkiiba boqol dhammaantiin waxaa idin leeyahay cimri caafimaad igu waara sidaa u caafimaad qabanayna igu caafimaad qabtiin ayaa rajeynayaa meel walbaa joogtaan igu noolaada nolol barwaaqi qariiqaad wanaagsan hadduu ilaahay idmo maanta waxaan idin hayaa qiso oo cajiib ah qisadaaseti oo ii soo dirtay gabar ku nool dalka Sacuudi Arabiya marka walaasheena ilaahay kheyr badan ha siiyo waa mahadsan tahay walaashay waxaa ku leeyahay jazaakallaahu kheyr jasadaada janno waa mahadsan tahay qurxey waxay tiray abaay jawaahir waan ku salaamaadi iyo asxaabtaada iyo familkaaga waan ka qaadnaa anagoo isu duuban asxaabteedii anigaba anaa wakiil waa ka qaada qaali sida noo soo salaantay in la eg intaan soo salaantay inteeda kalena anagana hawada ku soo marinay waxay tiri walaasheena saaxiibaday ayaa waxa ku dhacday qiso oo cajiib ah waxay ka baratay WhatsApp group wiil ayaa ka baratay 2014 waxay ka baratay wiil markay ka baratay WhatsApp-ka 2014 wiilkii way isbarteen muddo oo sanad iyo bar ayay sheekeysanayeen sanad iyo barkaas kala barkiisa wiilkii gabadha waxa ka dhaxeeyay asxaabnimo iyo walaalnimo ayaa ka dhaxeysay bacda sanad iyo barka gudihiisa waxay ku asaaseen jaceyl oo qurux badan oo aad iyo aad u fiican u farxad badan markay muddo wada socdeen wiilkii reerihiisa ayaa waxay ku dhaheen gabadha nama soo gasho ismana guursano isku gayaana maanihi marka hooyada dhashay wiilka waa Soomaa labadana waa laba is jeclaatay oo aad iyo aad isku jeclaatay dabcan hadduu horta family wax soo dhax galo iska barbaleen tahay markaas wuxuu ku dhahay hooyo gabadhana jeclahay iyadana way jeceshahay maxaan doonayaa inaan guursano hooyadii wiilka dhashay wuxuu ku tiri may wiilkeegiyo haddaad duco rabtid gabadhaaseeti isku waxamanihi geeleeni geelkooda meel madaaqo wiilkeegiyo waa ku duceynaya ka har gabadha abtigaa dhalaa lagugu daraya dabcan wiilkii gabadhi maxaa la rabay inuu u sheego oo dhaho abaay macaanto jaceylkeena waxaa ka weyn kelmadda waalidka ee ogaaw moose dhihin walaalkay qaaliga ah moona u sheegan gabadhii laano dabcan wuxuu ka cabsanayay inay niijabto laano aad iyo aad ayuu u jeclaa ayadan u jecleeday hayuu dhahay hooyadiis warkeeda yeelay gabadhii marka ilaan qofka nafaa jeceshahay oo waxna ku sheegan barbalaan leedahay gabadhaas way xastay oo waxay ku xastay wiilkii sidoo ahay maahan culeys badan ku yimiday sidii isla hadli jireen waa isla hadlay raagsan hadaladii oo quruxda badnaay masajidii quruxda badneed ma jiro marka sheekada sidoo socod walaalo maxaa kugu dhacay isbedel ka muuqdo maxaa kugu dhacay maxaa la lahay sheeg maxaa iska bedelay maxaa ku haayo maxaa dareensan tahay maxaa dhibaato ah walaalow ii sheeg gabadhii kurbaa qabatay wiilkii waxba lama wadaagaa waxba lama sheel kareynaa gabadhi miskiinta ahayd suuqana wiilkan uu baxay Soomaaliya tagay gabadhii abtigiisa dhalaa lagu daray wuu guursaday markii ilaahay markiis gabadha arooskii xaal soo dhigay Facebook wax maqan yahay Facebook la soo dhigay ambaliyadii wax dhacays wiilkii wacday telefoonkiisa wuu dansanay waa wacday telefoonkiisa wuu dansanay marka Sacuudi Arabiya laba meel kala joogeen iskuma dhaweyn asagana wuxuu joogay caasimada ayadana waxay joogtay Jidda marka uu soo noqday Sacuudiga uu soo noqday markuu Sacuudiga soo noqday gabadhii la hadlay oo wixii dhan u sheegay marka telefoonkan waxa ka qaboobay abaay awood uma lahayn inaan ku sheego dhibkaas dhacay waayo maxaa iigu sheegi waysay gabadhii marka meel iskiisay waysay waxay cabtay sun nasiib wanaag gabadhii ma aysan dhimanin alxamdulillaah way nooshahay raakisan
way ka haajirtay magaaladii oo dhan, meel kale tagtay, stress dhibaato aa ku dhacday. gabadhi miskiinteed way xanuunsatay. maxaa la wiilkii ficlan si naftiis waa la xanuunsaye, laakiin waxay ahayd hadduu kood hor u sheegi lahay hooyadee sidaan tiray abaayo ani ogaa hadduu dhihi lahay dhib ma laha le mogtahay. wuxuu leeyahay weli waan ku jeclahay, sidii aa ii jecesha ka daranaa kuu jeclahay. guurkaneetana guurka hooyadee igu qasabtay, waxaan sameynaya malahan, ducaa qaatay. marka dhibaatadaasaa kala taagan labada shaqsi oo welina hadda xiriirkooda haddana dibay usoo cusbooneysiiyeen. marka waxay tiri saaxiibaday ayaa aniga qisadaas ku dhacday, marka baayo inaa waxaan jeclaa asxaabtaada la sheelgareysid wixii tale iyo tusaalane insha allah asxaabtaada ka sugeynaa igu tiray. aniga koley horta waxaa ku leeyahay abaayo sida hore kugu sheegay, waxaan ku leeyahay asxaabteedu haddana maqlayo anigoo wakiilka, ayagana koley commentiga ka arki doontiin waxay niila soo gudbiyaan. aniga waxaan ku dhihi lahay wiilkii haddee marba ee dhacday nacam isma guursanaanba oo wiilkan berina oo guursan karin, haddana ducadii hooyada ee taala meeshii, ani waxaa dhihi lahay abaa qalbigaaga ka bixi, ilaahay midka wanaagsan ha ku siiyo, asagana xaaskiisa allah ha u barakeeyo, wax kheyr qaban allah kala siiyo. waayo afara ilaahay u baneeyo, mar labaad wuu guursan karaa raagsan. dhibaatada taal waxay tahay beri hooyada haddana ma ogolaa doontaa, ma ogolaaneysaa, waa may haddana sheekadii meeshale kasii bilaabanaysa somaha. marka waqtigaaga ha iska dayicin, sanadii bar hore kaa tagay, bilooyinkan haddana wiilka xaas sii ahay, haddana xaas uu sii noqoya. marka waxaa ku leeyahay abaayo ka daneyso, mid ku jecel allah ku sahlo, midaa jecesha qalbiga oo ku hilmaamsiiyo allah ku siiyo, mid kuu nabsi baxana allah ku siiyo. waalidiinta soomaalida waxaa furaya inay waxaas iska dhaafaan. labada qofood isjecel isfahantay hal iskugu faatixay, hal iskugu duceeyo. jiilkii hore lama joogo, jiil cusub aa joognaa 2020. wiilka isagaaba hadda wiil baari ah hooyadiis warkeeda qaatay. dhalinyarada qaarkood lama qaadanayaan oo gabadhii banaanka beri dhibaato iyo wax kale buuq iyo inkaara imaaneyso. waalidiintan cunugaaga hadduu ku dhaho hooyo waxaa gabadhaasaa jeclahay amba hooyo wiilkaasaa jeclahay, ha isu diidine isa siiya, ilaahay in usoo duceeya, ilaahayna kheyr ha siiyo. marka waalidiintana taasaa faraya. marka waxaa idin leeyahay walaalahayga idinkana insha allah ra'yiga waa xaggiina, talada waa xaggiina, tala waa tii ilaahay. marka lasoo taliya abaayadaasiiti qisadeena maanta intaasay ku eg tahay. hadduu ilaahay idmo insha allah waxaan rajeynaa inaad taxano noogu dhigi doono hadduu ilaahay idmo, inkastoo anigana mashquulkayga iska badan yahay, aad iyo aad u badan yahay wallahi. marka waxaa insha allah hadduu ilaahay idmo insha allah biidni illah inaa qisooyinka meesheena nagu sii wadi doono hadduu ilaahay idmo. marka hadday ugu cusub tahay soo dhawow. asxaabteyda badanaa waxay soo dalbatay qisooyinka inaa oo soo badiyo, waan idin soo badi doonaa. wax alla waxaa jeceshiina waxaan la ahay diyaar. aniga idinka dartiina u taaganahay meeshaaneet, dhiirigelintii ducadiina iyo ammaantiina ayaa ku taaganahay. haddaa idinka ahaa laheen oo sidaa maasha allah commentigiina quruxda badan mar walba igu soo qortiin, haddaa saas ahaan laheen muu taagnaa lahayn meesha, mana kasoo muuqan laheen. marka walaalahaygiyow waa mahadsantiin boqolkiiba boqol, saa mar walba ii dhiirigelisiin ay ii taageertaan. waxaa idin leeyahay jasaakum allah kheyr, jisadiina janna insha allah. wixii ra'y waa nala wadaagi kartiin, waxaa qaldama waxay ka ahaata shaydaan, waxaa sax ahna waxay ka ahaata allah subxaana watacaala. marka walaalahaygiyo insha allah hadduu ilaahay idmo insha allah qisooyin badanna way noo hayaa. hadduu ilaahay idmo insha allah waxaa ka dhiganaynaa tixano. haddaa habeen walba xaawili waa ahata waxaa ka dhiganaynaa habeen u dhaaf hadduu ilaahay idmo insha allah. idinkana iisoo duceeya, anigana waa idin soo duceynaa. meel walbaa joogtaa ilaahay idinku xafido, ilaahayna ha idinku barwaaqeeyo. inta walaad la walaad baari allah ugu dhigo, inta qabina allah siiyo. waxaa idin leeyahay meel walbaa joogtaana ilaahay ha idinku xafido insha allah. waa isu soo duceyneynaa, balanteena waa janno insha allah. ilaah nagu wada bishaareeyo jannatul firdaws al a'laa. meel walbaa joogtaana iigu waara. wixii qisooyin ah haysaane ila soo gudbiya insha allah, isoo socodsiiya. asxaabteyda farandhiska facebooka kulli messengerka wax walba iga soo share gareeyaan. asxaabta whatsappkayga taqaana inta qisooyin haysane whatsappkayga insha allah iga soo la share gareeya hadduu ilaahay idmo. badanaa inta qisooyinka isoo gudbiso waa intii ugu xira facebookkayga messengerka. asxaabta farandhiska waa mahadsantihiin saa mar walbo oo idinkana maasha allah oo like igu siisiin oo views igu siisiin oo ku mahadsantihiin. waxaa idin leeyahay asxaabta facebooka jasaakum allah kheyr. asxaabteeda whatsappka gabdhaha youtuberada heen igu xiran family farandhis asxaab dhammaantiina
thank you جزاكم الله خير أول مرنتين إيو وكما دالا ما هاد علنتين كما دالا يو أول بدنا نيدين كهايا وحن نيدين كو أول جود دون ما كانوا مركوا ما هالسنتين ولا ليه قيمها مدن وأنا إذن سلامة أمل بادوك جوكتين يوارا عمري عافمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولا شيء جوار أوفيشال.